jaamacadda macallimiinta waalidiinta wasaaradda waxbarashada iyo qaranka waxaan ku habalinayaa guusha maanta Soomaaliland gaadhay ee tirada intaa laga ardada oo waxbaratay maanta ay qalin jabinayaan habayadu caawinayna aad iyo aad ugu faraxsanahay waan ku faanaynaa waan ku dhaadanaynaa waxaan si gaar ah u sii taariikhinayaa odayaasha da'da ah ee maanta master ka qaatay jaamacadda oo weliba qodobkii loo baahnaa qaatayoo xalinta khilaafaadka oo inoogu badan waa ilaahay mahadiyo weynu bahay iyaga qolada ugu horreysa ee shaqo la siinayo ee shaqaheeda iyo qolada habaryada kadib waxaan u mahadnaqayaa dadka ka soo qayb galay halkan qof walba maqaamkiisa lagu mahadnaqayaa iyo xilka uu hayo waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa martida dibadaha inooga tirin ee uu ka mid yahay gudoomiyaha jaamacadda magalle madaxda ka socota jaamacadda jigjiga iyo ninka ugu fadhiya ingiriiska halkan iyo ciddii kale marteen oo timidna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inay nagala soo qayb galeen mahadnaq kadib iftiimin ardayda wixii la dardaari lahaa iyo wixii la odhan lahaa waxaan ku raacsanahay dadkii hore intay yidhaahdeen oo ugu horreeyey gudoomiyaha jaamacadda hargeysa halkii uu dhigay baan dhigay wixii lagu dardaari lahaa iyo intii uu yidhi iyo intii ka dambayso waddadii uu raacday halkaasaa taagan intaadi fali lahaa waana iga horreeyeen allana haydinku afo walaalayaal waxaa maanta inoo farxada oo waa isuweynooriyaa oo in lagu farxa ay tahay oo markii koowaada dadkii maanta halkan ka hadlay sida ay u hadleen inay isku yuhuud iyo isku mid iyo isku qawl lahaayeen hore waxaynu qaanay fagaarayaasha halkan oo ninkii jaamacadda halkan u hayay hadalka qaybada inuu aada uga sii baqay oo ka dardaarnay waa gora waxbarasho waa tahliyad qolada xisbiyada iyo siyaasadda naga ilaaliya waxaan aad iyo aad u faraxsanahay qolada iyo siyaasadda xukuumad iyo xisbiyada inaanu ku dayanay jaamacaddu sida waxu maamushay iyo akhlaaqdeediyo maanta aanu heer qaran u wada hadalnay oo meel baysan ka wada hadalnay iyana waa tababaraan jaamacaddiina ka baranay habaadii aad baan ku hambalyeynay halkii xisbiyada mucaaradkii maanta ay ka dhigeen waxay ahayd meel cusub sidaa ay qaranka u dhowreen ayaanu ugu qaadanay oo aanu ula midnahay mid baan ugu sii daraya qofkoo hadaba wuxuu ku aqoonsaday madaxweyne odamadaya waanu ogolahay dadka waxaan u sheegayaa baariyahan dambe waxaa laga saasaar oo inagu soo kordhay oo caalamka oo dhaba dhibaya oo ku soo kordhay dadka oo la siiyey waxa la yidhaahdo isgaarsiin ama miidiyaha dadku dhowda gaara oo qof waliba halka isagoo jooga wuxuu doon uu ku hadlo adduunka oo dhan bay dhibaysaa dhaqan oo dhan bay jiiday diin oo dhan bay jiiday xuduudka oo dhan bay jiiday waa hawl caalamka lagu soo kordhay inaguna taa weyn la wadaagna markaa dadka ka hadla halkaa ay soo baxa oo qof talinayo oo tala fiican leh waayo arag mid leh mid xadiis akhriyaya mid samaan akhriyaya mid shaydaaniya mid walba kuu soo galayo inta dhibaatada xaggeena ka aruurtay ee wax fiicda inta wax canaananaysa inta wax dhaliilaysa inta maagaysa aniga ay wada maagta waay ku mahadsan yihiin waayo anigu qarankaan matalaa intiinaasoo dhan baan matalaa markaa kii Soomaaliland maagaya anigu way maagaya kii carooda anigu waa igu burburaa kii carruxooda aniga igu dhuftaa anigu maadaama aan intii badnay dadka intiisii badbaa ay wanaaga iyo samaha ka talisaasi arkayseen ka qaldana waa ugu qaadanaynaa waa saxaynaa waa waarinaynaa haddii loo taag waayo filmo wada dadka waa ka qabanayna wixii filmo wada inta kaleba saxab wuxuu la dhegeysto kii tala soo jeediyo waa dhegeysanaya qofka tala soo jeediyo waa dhegeysanaya ka dhaliilada wax ruuy u dhaliilada waa mahadnaqaya waayo uu toosiyey ka imaageen waxaan ahay imaagana waa ducaynayna in ilaahay soo hadeeyo waxaan aqrinayna marka waxa quraan ku daray waxa weeye qofka tala soo jeediyo haddii la yiraahdo talada ka toosan ila aniga intaa la soo tala iyo waari jeedisa qofka hadlaalo waxaa laga rabaa tudhexa oo qofkaas wuxuu doonayo iyo ka soo jeeda wuxuu doonayo labada dhexdooda waxa isku raaci karayaan inaan helo hadduu mid raatayda iyo ma soconayso taa gogaan qof wal macallin hortaagan arday ayaa tada uga qaadan marka qaranka dhan uga qaadayso ee qof walba ku soo halqabsado qof walba talaada soo jeed waxaa tabanaysa keen waa in wax laga qabtaa wax reebtaa oo ogaataa inay dad wax ka dhaxeeyaan markaa lagu yidhaahdaa intaa waad ka tegaysaa intaa adaad ku qaadanaya kan oo intaad ka tegaysaa waad qaadanaysaa ra'yiga dhexayna isku tegaysaa
diin walba sharci walba aqoon walba taasi dhigsaa lagu hormara ma soconayso inuu qof dhantayda ugu hadlayo anigoo madaxweyne oran maayo ugu talaya qof bay qabsada way canaantaa waan u soo fadhiistaa waan dhegaysaa waa inaan ciyaalaha lagu socon karayo markaa qofku markuu tala soo jeediyo haddii tiisa la dhaha wax ka reeb ama wax laga jaraa ama laga joojiro sharcigaan ogolayn qofkii kale wax kaa tabanaya danteennaan ku baxay dee yuu carooni yuu duri yuu qayrini ilaa qofna tiisa lama ogolayn sii daayeen waxaan aad u faraxsanahay in xisbiyada qaarkood maanta meel waxaan soo dhigeen talabaad social media dhibaatooyinka oo adkaysanayna dhalinyarada dadweynaha dhibaato maanta weyn oo Soomaaliya dhex taala ma jirto social media dadka hadlaya waa waxa aad u hore u sii daayay intay nolol jirto khilaaf u jiraya intay dawlad jirto mucaarad u jiraya inta maamul wada dhalinyaro u jiraysa ilaahay uu baa kaamil oo u sheega u leeyahay bini'aadam wuxuu waa qabiya marwal saasaynu ugu khilaafaan yar saasaynu 20 sano ku soo galay hal ceeb bay Soomaaliland leedahay marka hadlaysan waxba tuulina wax uu weysiiyay hadalkeeda marka doorasho lafta wax ku jibsa عاد wuxuu go'ay in Soomaaliland isla soo baabaaday way kullu qoyay sida isbada hore sheegay hadal kullu waa laakiin qalbiga ku midaysan hadaan Soomaaliland oo markay ka daafacay كانوا يا ربنا هاي وحي خلافات إحنا ولا بيننا قضب كدورة شورى حالتي سبيل وعام بين رئيسا شرح حزب الله وسلم أرتي آل بنوسور النوينين وحيالها أي كعبرين أو آدي آدي قاعدة وحكمات بارمان كا آن دوت قليل وحكا عرصدي ونقول بالقرية إلى المقاطعة أو ماتا حديث نكي شرعي برا قولها يقول شرعي لقليه وقت إلى نوير يهي حزبية عارضة وحكم أصلا إلى وقت ينقلون دولة الشرعي أي تاكد وقاطان أو الهروب المسيح دورشون عضو وفريا إن شاء الله وليا قبل دونا تاجر يشون وما بقرن تاكا قرن مدحنا كم أصلي يجي مدحنا دورشون كبدو وأي ناس كداري مشارع إلى قلب وكلام مشارع معها وقت ما يقولوا هاي وحدي قالوا كل شيء هؤلاء تاجر دورشون وارد منيه دورشون هو المباح الوقت اللي بيجوته تاجر صنفور مالنا خلافات كان علينا يعني نعمل بجرنا والله تنبطنيا وتذكر والليسنيا هل كان حي مسؤولنا إن شاء الله كل ما يدون وحرما أنا قالوا واحد يقول أنا وحرما نبضي القاضي يوم الهضر إيه اسم تناس بيت كل ما يوم هكذا بقينا إيه شاف في السؤال إذا أول في مشاريع تدور هنا اليوم ده راعي أنت بدأت أفرط معارض أنا هل بان ماجي حكومة بان ماجي نيجوري بدأنا سيدا بنت ما تين لا ما قول تطورون لا عيون ولا يربش وشو يقولي لكن واحد لا يحرق هالشيء ولا روح حرق من هالشيء وعارف كلام تاسم على هاي أقول لما والله الهبرية نباتي سومالي لا محمدين يقولوا عنو ما تنلو كم قرار بتشوف هل كم قضبنا اللي له ده بيوعي حق أهمها البلد عارف كأور عن علم وربا شاركين يبتفهم نبض يسكاش يسقدر برباطين قرض وحنا الحياة مانت والآن أي مسؤول قصر على أنتم الآن وكرفتها وصوماليا يرد حمل كترس صدق قلوب ما وش جدا وقف كل السؤال بحال كاجوز يكون قصريا ولا لا يقدر يسوي حكمة اسمه بيننا اسمه دين بيننا اسمه رقم بيننا ترى ما سؤال يسوي حكمة مدي دليل مركز الشتى الأساسية أنا قالوا هنا هالجزء الأساسي نقول الله كم خاطي لما دي ذيو odayaal shay asaasay xoogooda iyo caqligooda ma ka bixiyeen waa abayaashay awliyaashu toodi baan jecelahay inaan raaco lixdankii baynu midowday bishii July inagoo laba dawladood oo siman oo caalamka ka tirsan 30 sano inuu mid ahay way inaga duntay 19 oo waa lagu kala tegay imika geli maaya eeda duminta lahaa geli maaya way inaga duntay qolada Soomaaliya waday qaadatay waday wax u dhisatay فدرال ما يقاضت قول الله مدحوري أنا يسميسات برلمان ما وحود ورطة إنه وضع كلا مقاضم كل يسقاش بينه هالشيء وحيد قال نحبري وحنا كنا قلنا حالي دري برلمان بينه سنة دور الشعب بينه قال خبر اللي بينه قاضي الجمهوري يقول فدرال ما يقاضته سيستم كله دمام كله سياسة قرية صدق حسنا يسوي عارف كسائر عظيمة وحو اعترافه تيك وفرته تاني عرب كمعترافين ولا لدينا الصومالية واحد مكفرين ويقرت واحد إلى يوم كنت كوش أي بلاوان إلى هذا لبد ولو سوين بروهاي
imikana la wadaan kala qaadanay haddaan ictiraafta waraayana ictiraafkooda siiya annaga heshiin doonee laakiin way ka qaldantay ragga halkaa jooga maanta waxaad moodaa inayna qirsaneen inuu laba dowladood oo lixdankiisii midna wahay waxaad moodaa inaanay aqoonsanayn soddonka sano inuu laba wada kala marrayna iyaguna federaal iyo madaxweynaha iyaguna jamhuurina waxay uleebeen inay qolo waliba distoor gaala samaysato oo ay u codosay oo ay ku qasban tahay weliba distoorkeena 1990 uu dadkoo dhammi u codeeyey oo wuxuu ku fadhiyaa distoorku codka ummadda dadkayna matalan madaxweynada ee baarlamaan leh ee dowladda hoose leh cod bay ku fadhiyaan iyaga madaxweynada baarlamaan baa doorta 500 meel u xirey baa doorta distoorkooda ay ku eedeeyeen waa muqadas mamay u codeyn ciidamo iyaga iskuma ogola waa yaab ee weliba ay doonayaan u sheegtaan xagee ka qalday waxaan ugu sheegayaa war waxa dhabtu waa caddahay walaalayaal arrintana waa arkaysaa ragga maanta talada haya waxyaalaha qaarkood ee birmigada ku dhacaya eelankii salaama cilaaqaadka u jiray turas cudurna maxay u jiri waayeen garan maayo waxa dhaafaan iyagana waxa weeye waxaan leenahay waxa aan wadaa waa wixii Soomaali boqol sano ku kala fogaanaysay caqli hala keeno labadii dowladood ee xilligiisii bay hor ku wada hadlayna nabad iyo walaabtinimo wada hadal iyo kala garan gaar doonayna waxaan aadwadaa wax soconaya maaha gartuna waa caddahay ilaahay ka taqaanaa cidda ku gulmayna aad iyo aad u mahadsan intaas ay iga dardaaraysa arrimaha dibadda wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh